هذا سنتين مكان نوعه دكتور محمد مكي فليتفضل مشكورا يا أستاذ محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وراها مركز كوبات والسلامتين مركز اللباد كلن كأنه وحو داريه مانتا والتأسي iyo cambaareen iyo duco weeyaan saan fahmay marka koobaad marka waxaan u ducaynaynaa dadkii ehelkeena ahaa walaalaheena ahaa qaraabadeena ahaa muslimiinta ahaa ee lagu halaagay ee lagu xasuuqay si bareer ah si kas ah si aan kama ahayn magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan waxaan leenahay Ilaahay jannada ka waraabiyo Allah u naxariisto qabriga Allah u waasiciyo ehelkoodii oon ku jirno iyo dhammaanteena samir iyo man Allah hanaga siiyo dad fara badan bay ahaayeen 58 qof ama 60 qof baa dhimatay adduunka markii 60 qof ay dhimato ama intaas oo qof saas loo xasuuqo dad baa qaata mas'uuliyadda waxba ka dhaca laakiin nasiib darro waxaad moodaa dadka dhiigoodu yahay dhiig oo biyo oo kale inuu yahay moodaa oo mudan laga lahayn insha Allah maalmaha kamid ah bay cadaalad dadkaas heli doonaan hadii Ilaahay yiraahdo وانا قصب إن ضدك النوع عاصو كلها ودن كوذا أي أبحيان بيجود أبحيان وحن ربا إن عمباري مركانة السيدة عمبارين تي أبوينيد أفصومال لو شيء كرو إن عمباري يصير متاع وحن ربنا إن أشياء كوا كدم بي فالكاس كوي سو أبابولي كوي سو فوزي يكوا إسقرحيبة إن إيجا dadkaas meesha ku halaagsamay ee ugu horeysa walaashan aamina iyo intii kalaba inaysan hadur noqon hadii la yiraahdo inaysan cabsi gelin doonin jidka doorashada laga leexanaynin jidka dawladda Soomaaliya laga leexanaynin noocaday meeshaan rabno noocaday meeshaan u socono hadafku inuu cadi hadii la yiraahdo wadada kaliya ah ee ku heli karaan xuquuqdoodina waxa weeyaan in wadanka doorashadiisa la dhameysto oo sabab insha Allah kadib dadkan cadaalad heliyaan hadii la yiraahdo intaan halkaas baan kale إنجا ما يقدر بان سوي ما التعسي ما يقدر بان ولقي المم قشان مدة قدام بيت ذلك الصومالية إلا الإنسان لا بكون وقف أي مالك بابين هل البال سوقفتي هل البال حري هل البال حلكواي ضد لهلاقي ولا بابي ما يميزان مغرب ميزان مغرب صار متاع وحاربنا مركة إن عندك أدو عينه lana taageero dawladnimada Soomaaliya dalkeenuna wuxuu ku jiraa marxalad kala guur ah oo xasaasi ah oo adag oo dhaxdu taagan yahay ama saasoo noqon ama sidoo noqonaya anagu waxaan rabaa dalku inuu hore u socdo hadii la hayraado oo dalkan laga baabi'iyo la tirtiro cadawga ummadda Soomaaliyeed oo shabaab la yiraahdo argagixisada aan diinta aqoonin ee ummadii halaagaysa ee ummadii gowracaysa ee dhiigga islaamka baabiinaysa ee diinta waxba ka aqoonin shabaab iyo wixii taageera iyo wixii la halmaama iyo wixii maxaan ku dhahay u qosla wixii soo dhaweeya oo dhan baan ka soo horjeednaa anagu haddana dadka muslimiinta ah run ahaantii aad baan uga xunnahay wixii ka dhacay magaalada Beledweyne waxaan ka codsanayaa baarlamaanka Soomaaliyeed ee iman doona ama yimidba inay u hiiliyaan dhiig dadkii ka dhacay Beledweyne dhiigooda u hiiliyaan waxaan ka codsanayaa inay u hiiliyaan dhisitaanka dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay fahmaan dalka Soomaaliya maanta meeshu maray khatartu ku sugan yahay fahmaan ka codsanayaa wadankeenu marxaladin kaarabo maraya taas baan ka codsanayaa inaga dhamaantan Soomaaliya waxa waajib inagu ah inaan garab istaagno dadkaas iyo isbitaalkii iyo wixii maxaan ku leeyahay Beledweyne ka dhacay wax alla waxaan awoodno ee dhaqaalaha inaan ku taageerno waajib ay nagu tahay insha Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور محمد مكي أدبر مع سنتها كلمة هذه جوابات الرحيد مركز نوح ربعين الوعاء حسن معلم محمد سي كلمة دي كوها دنيد وهل كان سجن وغده فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولها سويني
صديقنا وهرين وحنا لكم السلام يا صلاة مسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل ولا الله يجاه الرئيس اللي كان واجيان قال هذا بلد وينه وحكى دعي دعاء هذا فالحم وذلك هذا يكون الرئيس وحوله وحال سوق درينا عبارين دعاء إيوه تعسي أنت بدلنا ما شهر أنت تعالى إشباس من الله يعني تاي فهمتي waxaa ka dhacay beledweyne iyadoo dhowr goor ay xasuuqyo caynkaase ka dhaceen xataa sanadkan gudihiisa oo 3 bilood laga joogo ayaa 2 goor qarax xoogla ka dhacay oo marna ahay kii ay taliyaha booliiska markii la dilayay qaraxuna u dhacay marna ay ahayd midaan maanta la leeyahay 200 oo qofooda wax dhintay iyo wax dhaawacmay waxaana ku guryo beelay dad shacab ah iyo hanti dowladeedna waa ku burbureen waxaana horreyn ka tacsiyeynayaa mas-uuliyiinta ku dhimatay meesha iyo dhammaan intii ku geeriyootay waan ka tacsiyeynaynaa tiraanyadaas mudugada leh waana u ducaynaynaa waxaan leenahay ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo gacanka xaq daran baa dishay waxaan rabnaa inaan dardaaran yar siino maamulka gobolka Hirshabeelle arrin culus baa dhacday runtii arrinta culus waxaa idinkaga fadhiyaa inaad daba gashaan oo dambigaa ciddii lahayd aad farta ku taagtaan waxaa ka dhacday arrin intaad la qarxiyey dad la qarxiyey markii hore mas-uuliyiine markii la qaaday isbitaalka loo sii waday gaari kale loo sii diyaariyay haddana inta looga dabageeyay sidiisa dhaawaca looga kicin ayaa haddana la isku sii qarxiyey dhibaatada ugu weyn marka waxay dhacday markaas waxaad dareemi kartaa cadaawadu intay laegtahay ma rabo anigu hadda yani inaan meel farta ku fiiqo laakiin arrintaasi nin kasta oo dhegaysto ama yani indhiindheeyey waa ka weyn tahay arrimihii aan arki jirnay waa arrin culayskeeda leh waxaan rabnaa in reer hiiraan ay arrintaasi u midoobaan ciddii dambigaas yeelatane maamulka gobolka mataqaana beledweyne iyo dhammaan Hirshabeelle madaxdiisa oo kala duwan waxaan ku guubaabinaynaa inay arrintaasi yani ka mira dhaliyaan oo ay soo saareen ciddii dambigaas iska lahayd waxaan u ducaynaynaa dhammaan intii ku dhaawacantay intii ku dhimatayna jannadii firdaws Allah ka waraabiyo intii ku dhaawacantayna Allah dhaawacooda u bogatiro intii ku qasaartay guryo badan kaga burbureen saxabkayga inaan baa kamid guri oo xoogiisa saaray meeshaas ku baabaayay isbitaalkii dhamaayay guri marka kulligoodna waxaan leenahay intii dhibaatada ku soo gaartay dhibaatada Allah ka bixiyo annagana waxaan leenahay meeshaas kulley hawl baa nooga bannaan sida Cabdulqaadir oo kaash xildhibaan Cabdulqaadir uu ka dhawaajiyay daay wuxuu yiri hal xildhibaan ama laba xildhibaan khidmadii laga qaaday baa ku filan buu isbitaalka aruntis arintaasi ayadana waa farta ku fiiqayna insha Allah wa salaamaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan ku sii dhownahay ku sii sareynaa saddexdii qof ugu dambeysay oo markan Maxamed Umar ku soo dhawaad walaalkii fadlan mashkuuran بسم الله كل جا وحنا ماشي نسوي النمط تعسي إن كجدينه دعدي قبل كهيرة كدعدي مركا أخيارتي جور السودان با كل واقع هلأ وحكلوا أنا قديري وأقصي درو ملاها كل يوم وين عن الحجيو أمنية يفوججنانته انت صوبك سوق بقبينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan wacayaa markan Cabdicasiis Geedi soo dhawaad بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته runtii
waxaan caawa meeshan isugu imaanay ama aan kulankan aan usoo ajiibnay ilaahay subxana watacaala marka ugu horeysa ajirkii xasanaadka ka siiyo walaalihii soo abaabulay oo dareenkooda uu sii waayey inay guryaha fadhiyaan dhibkii dhacay oo runtii masiibo ah xaqiiqiyan masiibooyinkii ka dhacay geyiga aan ka imaanay mid ka mid ah inay guryaha ku sugaan oo ay halkaas ku ekaadaan dadkii diiday ilaahay subxana watacaala ajriga xasanaadka ka sii jaaliyadda hirshabeelle oo runtii culays fara badan isagoo saaran haddana damiirkooda uu sii waayey inay ka aamusaan arrintaanna waxaan leenahay aada iyo aad u mahadsan yihiin xaqiiqiyan waa murugo waa isbitaallo aan dhammaanin maalin waliba qof aan jecelnahay dad aan jecelnahay inaan hadalkeenna uu noqdo allah u naxariisto waxaa runtii jiilka soo koraya maskaxdooda aan ka goyi doonin keenna iska dhaaf dhacdooyinkaas maalin walba soo noqnoqonaya oo jinni ku tacaba jinni ku dil ah cid aad wax u raadsatay aysan jirin cid aad daynu qabsanaysa aysan jirin gobolka hiiraan waxaan u malaynayaa dhacdooyin badanaa ka dhacay laakiin labada dhacdo oo ugu waaweyneed oo dhinaca qaraxyada ah waa kii wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo guddoomiyihii gobolka marna safiir ahay laqanyo iyo cumar xaashi ay ka mid noqdeen dadkii ku geeriyooday kanna waxaa ku dhintay dad aada u fara badan oo runtii beerkeennii ah xildhibaanna ha ahaadaano duqey ha ahaadaan aqoon-yahanna ahaadaano gabdhihii laakiin su-aasha la isweydiinaa waxay tahay hadalkeennu wuxuu ka enkaadi doonaa oo keliya inaan maalin walba dhahno allahu naxariisto ilaahay subxana watacaala waxaan ka baryaynaa nasri khayr qaba inuu noo soo dejiyo waa dhibannahay gees ilaa ka geesaan dhibannahay maahan mid meel gaar ku ah waxyaabaha mararka qaar aadka u dhibka badan ayay ka mid tahay dhacdo dhacday oo dad intaas leeg ay ku dhinteen in xataa mararka qaar la siyaasaday waa nasiib dar marka waxaan leeyahay intii dhimata allah u naxariisto sida horeba loo yiri ilaahay subxana watacaala gacanka xaq daran aad dishay janatulfirdows alla ha ugu bishaareeyo eheladii iyo qaraabadii ay ka tageen samir imaan allah ka siiyo inta dhaawaca ah iyagana ilaahay ha u boogadhayo waxaan leeyahay fariin u dirayaa runtii xildhibaanadii 25 ahaa qaarkii lasoo doortay qaarka dhiman ee khaasatan kuraastoodu ay tiilay magaalada beledweyne dhibka maanta reer hiiraan gaari madaxooda u gaar waxba la qarin maayo haddii aysan kuraastaas meeshii ooli lahayn waxaa laga yaabaa in dadkaan aysan hemigaas aysan geli lahayn ay meesha ku tagaan waxaa laga rabaa marka isbitaalkii burburay oo ayeeye iyo awoowe iyo walaal gabar iyo wiilba leh kii ay wax gaaraan la geyn lahaa maanta waa burbursan yahay waana 25 xildhibaan 25kaas xildhibaan waxaan ka rajaynaynaa isbitaal casri ah magaaladaas inay ka dhisaan lacag waxba maaha laakiin fikirka iyo ciddii qaadaa muhim sidoo kale inta maamulka hirshabeelle madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ay ugu horeeyaan inta badan waxaan u malaynayaa waa maamulka keliya ah oo aan marna dawladda ka hor imaan macnaha markaan leeyahay aan maamulka aan dawladda ka hor imaan xataa shacabka beeralayda ama kuwa xoololeyda ay dad dawli iska yihiin haddii ay dawlad noqdeen magacii dawladdan wax loogu qaban waayo maamulka mas-uuliyaddeeda iskale aada iyo aad aad u mahadsantihiin ilaahay subxana watacaala waxaan ka rajaynayaa inaan kulamo farxad leh aan isugu imaano inaan kulamo muruga ah inaan isugu imaanin uu ka noqdaa kii ugu dambeeyey aada iyo aad aad u mahadsantihiin wajazaakum allahu khayr waxaan markaan wacayaa inuu noo soo gabagabeeyo xafladan noo soo xiro gudoomiye axmed xirsi loodi falyatafadal mashkuuran
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أولا إلى ما هسكله أنه ما نتعب ما قبل ما شاء نسكن كان وعن مركز ما دعينا يا جاريد الشباب قدومية محمود هذا كلن كان قيمة على الناس وقتين أسقيتين كيسة على أنه ما سنتين سيدي رب الله تعالى وعن أن الدنيا هي كتعسينا كل dhibaatadii xanuunka badneed ee ka dhacday magaalada Beledweyne 3 Maash bisha hadda ku jirno waxaan leeyahay inta dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah u boogadayo waxaan nasiib dar ah maartay in maantay qarniga 11aad aan weli ku jirno tacsi isdaba joog ah oo aan weli aan nahayn halka sida macnaha ugu hortagay la tacsidan waxaa maalin walba baxay dadka qofkii ugu qiimaha badnaa ugu aqoonta badnaa cilmi maadi ama diin hadday noqoto sida xildhibaan aamin oo kale oo qofkana waxa u dhimanaya ay tahay cadaaladda inuu wato ka hadlo maanta heer waxaa la maraa cadaaladda xataa aan laga hadli karin oo qof walaalka oo dulman aan xataa u doodi karin marka waxaan leeyahay dadka daga bartamaha koonfurta macnaha kaalkacay ilaa iyo raaskambooni walaalayaal indhihiina fura ما هو بدك كلمة أو بدك كنا قاسة بدك تعسير أطال وضد قاسة وهالغويس قاسة رنتي واحد أمريكا ما أنت نكستور كلمة وانك وحقلك هتطول اخترع هلا دو علماء هلا دو حرب هلا مركب ما هو بينا أنت تعسير أسكت إنه وحي واحد لنا على صوغ غبن تاسل تيجي معقول ما مركب عقلي مسكح كشغل يصيرنا طبعا أمدان بدك ما رتي معناها وحقلك أنا أقول بكيل عشان عدو waxaan kaloo soo jeedi lahay kolay haddaan nahay maaragtay dadkeena maanta meesha isku mid reer Hirshabeelle iyo dhammaan galmudug xataa ku dar sidaan uga qayb qaadan lahayn isbitaalkaasna hadda annaga dhisna laftigeena ilaa cid kale u maqan aan ku hadlaynayno kolley ma jirto inaan annaga u istaagno waa meesha dadka lagu daryeeli lahaa lagu dabiibi lahaa marka waxaan aniga kolley soo jeedinaa dadka inay hurdada ka kacaan maamulka Hirshabeelle kolley waa garanaya wixii waxaan ka dambeeyay inay maaragtay cadaalad soo istaajiyaan إلا الماشي قاعد اللي يقول لي أما حلوان هذا اللي يقول لي هل قفدتي أنت صقفوا لي ما عدالة معه مركو يقرنا كل وجه هنا أي جماعة باقي عندنا وحيدة إن ذيك عدالة صور استاجيان أنا كل حالة أنت اللي ما تعلق محرسته أنت إنك سوق بيشان وما سنتين كلنا كانوا واقع أساسا بوحرين أما سنتين شكرا